waxaan u ahay nimanka Chelsea aan la yaabanahay macnaa aniga Chelsea baan la yaabanahay aniga tartiib leh loo socdaa tartiib leh u socotaa waa socotaa aniga cawada saanan ahay saanan taaganahay macnaa aniga waxaan dareemaa aniga waxbaan dareemaa macnaa idinku wax ma aragtaan war imisaan idin dhahay Chelsea ciidamadeeda lama haysan karo war imisaan idin dhahay Chelsea wax kala weeyaan anigu nimankan blue ah inay meel u socdaan aan dareemaya aniga imisaan idin lahaa war libax qoyb istahmoodi anigu ciidamada Chelsea galab saanaga soo hartay maxay rabaan anu guriga saakay nimankan maxay rabaan intay u socdaan isleey nimankan maxay rabaan Abraham ba intuu wash bolisid wash nimankan armala joogo wiirninkii jira armala joogo caawaya ciyaari baan soo qaadan doonaa caawa jibar wal falo weyn baa noo yaala waxa weeyaan dhafur xamud raagayn karna waxaan iri warkii habeenimo caawa mati ma caawa sawir lama ogol baan iri caawa Chelsea wayna meesha tagtaa wad cumada ku turtaa blue waa boos kala Premier League idinku hadda dartaan ku haaya Chelsea Everley ku haaya labada la jooga ayay Liverpool iskaajir City waa la soo dhaafay caawa City waa la soo dhaafay inkastoo City ciyaar ay u dhiban tahay haddana waxaan ku sheegayaa nimanka la yiraahdo Liverpool baa loo socdaa Chelsea ciidamadeeda baan caawa meesha u imaanay warka habeenimo iyo balaas ciidamada ku turka Chelsea aanu caawa ciidamada Chelsea garab kuma saarna aniga maba saarnaba warkii habeenimo aan qaadan doonaa iyo waxyaabo ugu dambeeya ciyaar eegi doonaa caawa nimankii Arsenal baa ayaa soo gali doona 8 iyo barka habeenkiina Madrid hatta Madrid way jirtaa Bayern Munich iyo Dortmund hatta caawa 8 iyo barka habeen maqaar waa wax laga kala gaaro xitaa Barcelona 12 habeen bay caawa soo galaysaa adu caawa diiqyar ma iman karna anaga todobada saqa dhexe ma socon karno walaalayaal jamliga madaxa naga soo galay marka wixii kabahaas ku aadan bari nooga dhiga macnaha si cumaduna macnaha wixii ku aadan ciyaarahaas habeenka dambe jira kooda saqa dhexe ma ordi karno indhaha maaragtay bariyaha lama hayo inta noo wadi macnaha dhafar xamud rageys ma wadi karno marka wixii ku aadan Barcelona haduu caawa Messi yaala wax kala yaata birna sugayna macnaha warkay waafifta aniga caawa diiqyar ma socon karo idin bariya walaalayaal diiqyar le ma socon karno marka caawa waxaan rabaa inaan ku raaxaystaan ciyaarahaas moogta markii oo yaani shaqay ku taalo kale walba ku hayee ciyaarta ku raaxaysan kartid macnaha hadhow baad soo leedahay dadkii baa ku sugay xaabtii ku sugaysay ordaad galaysa waxaan rabaa caawa Arsenal hadda 20 toos Arsenal u socdaa Leicester u socdaa insha Allah 20 toos Arsenal baan rabaa habeen dambana tii weyneeda noo jirta Liverpool iyo Man City habeen dambe hatta microscope soo wata habeen dambe microscope wad arki doontaa marka ciyaarta dhamaato microscope-kaas waa anaas uu ku sheegaya sheekada sameel habeen dambe weeyaan microscope baa Liverpool soo gatay microscope intay dhalmada ugu dhiman baan fiirinaya habeen dambe waxa ka marka waxaan idin leeyahay caawa Arsenal ba marka Arsenal noo dhamaato Borussia Dortmund xilligaas jirta Barcelona ilaa waa ka ciyaaraha waa ka bal waa wixii ku saabsan oo arki doona insha Allah wararkeena dambe baad ku maqli doontaan caawa iyo ciyaaraha Chelsea waa laga yaabayahay galabtuna 2 gool iyo waxay ku adkaatay iyaba Crystal Palace yaaliyaada banooniga maqaarka maanta waa la socdaa maanta deg kantala inta ka socda Borussia inta ka orda Monte inta ka orda wariyaha lambad koox buu wataa nimayahow ciimadooda aan la haysan karin idinka ku haya Chelsea waxaan idin leeyahay Chelsea waa deyseen wixii maanta ka dambeeya Chelsea faraha adiga ka qaaday reer Liverpool masjidka isku mashquulay sameeyaa labadii isku mashquul sameeyaa hadda kadib dad gambar Chelsea u dhiga weyso horyaalkaas waa laga qaatay Chelsea booska labaad bay caaw Premier League joogtaa oo kaalmaad bay joogaan Man City waa la agbaray inkastoo mas'uuliyiinta ay ciyaarayso caaw booska labaad bay Chelsea joogtaa Liverpool waa taa la fiirinaya waxa leeyahay Liverpool wayaan waka caawa hayay way Liverpool anu waxaan diiray Chelsea dad ka mashquulsantiin oo aad leedihiin war Chelsea wax ma tarayso Abraham iyo Monte wada leedihiin ba waxaan diiray la tagaya horyaalkan waxaan u maleynayaa Bebe lagu dultaan u maleynayaa horyaalkan waxaan u maleynayaa ay gormayti ma caawada khilo gormayti ma Chelsea kale labaad ba wali waxa ka sii daran koowaad marka laga dhaco dadku caawayaabay gormay Chelsea kale labaad timaadine ilmu wata lambad ilmu mu wata lambad ilmu ka weyn wata ya hal ugu sirin ilmu ma han ku lambad wato ilmu ka weyn waa ku dilay ma ku yiri macna Abraham waa kaayay maanta 10 gool baa la maraya Premier League baa la maraya 10 gool oo Premier League buu maraya ilmu iskil ma yidika waxaan idin leeyahay kooxina mucaaradkow Chelsea waa deyseen Chelsea indaha waa ka deyseen niman iyo Chelsea loo gambar dhigto Chelsea waxa ku kismada are wara Liverpool ka tagar waxa leedahay wara Liverpool war ma dum gambar dhigto Chelsea anaga daa Chelsea waa iska galab ilmu xasbu keeto yaa anaga waxa ismu fariisanayna kuwaas meel magaarayna Ma City aan noo dar kuwaas aan ku adkeynay kulay hadda kadib hadda Chelsea ku adkeen weyso aw inkaro horyaalka hadan laga qaadan hadda marka Chelsea xiimaysa hadan ku imaan doontaa master inkar Liverpool waa leedahay mutahay reer inkar hadda Chelsea fariisan weysaan hadda kadib oo aad ku adkeen weysaan horyaalka hadan waa laga duwan doonaa Chelsea waa deyseen macna
ترتيب كذا كحلو سكور واحد يبايع ملا معارض وجنبر رجال ملا والله أجلس كورما ما جلس وقت كان عاوة يقول لا لا جلس بس قلب ها بوس قلبات عاوة ولا في الصبان هو كور ولا قلي دونا وعجلس يدك حتى اسكت تشتر ما سوء هذا قبر الوضيع معنا وركين وين هذا عبد وركين وين هذا المي أبراهام إيه مونتي المي جميل شبكة كان لا تجوك في صمان عاوة المي جميل شبكة كيما هذا عاوة كان لا تبني كل جوكتين هذا قدام قبر يعني جنبر ذي غانا جنبر معارض قدام قبر قوس يقولون معنا ما هذا ربتين جلسين وقت كان عدوى بصعدان يقولين عدوى بصعدان إن كورمان إذا أنت تدرس كم مشغول سنتين بان والجلس وحلو ليس وبركة زياوي دون ترى كورمان ما يشترطي وكاب العاوة لبا قال أبراهام أيها كهور دليل كلا بدنا برسيج بدليل استيل وكاي بلو سيس على سعاوة بس كلا بد بريمير ليجا هاي ليفربول تشيلسي waxaa lagu leeyahay wakiilada Abraham maanta wuxuu gaaray goolkii soonaad ee Premier League buu gaaray taas waxay ka dhigan tahay Rashford ninka la yiraahdo ee mudada Premier League soo ciyaarayay Abraham ma gaaro Abraham korqamba qalo iska leeyahay ka war ninkan weyn uu noqday ka war ani galabta fiini muu cel aniri waa ugu celi markale Abraham waa weyn uu noqday ka warka inta la qaatay ugu soo ka war goolka Abraham Rashford meel saaray waxaa lagu leeyahay Rashford xilli ciyaareed guligiis 10 gool ka badan ma dhalin imise ku qaadatay kan la yiraahdo Abraham 12 kulan bis la ciyaaray 10 gool Premier League haysta Abraham wax kala weeyaan halka Rashford xilli ciyaareedkiisa ugu badnaa Premier League uu gool ka dhalay 10 gool bis yahay waxaana ay 3 kulan bay ku qaadatay inuu 10 gool ka dhalay Premier League xilli ciyaareedka lagu tusaalkii meesha ay ku qaadanayso Rashford 3 ciyaarood inuu 10 gool Premier League ka dhaliyo Abraham 12 kulan still 10 gool sanadkan geedka xataa inuu Abraham duubtaan loo maleynaya Allah bad ciyaartay wata Rashford kala ku hayay Rashford ka aad sheegaysaan 12 kulan bis lagu dhaafay macna Rashford intuu ku qaadato inuu ku dhaliyo 3 kulan horyaal inta ku qaadato maanta 12 ciyaar baa lagu gaaray oo 12 gool lagu dhaliyay waxa lagu dhaliyo 10 gool lagu dhaliyo marka waxa uu leeyahay Rashford horta meel iska saar waxa meel iska dhig wuxuu taraya ma lahayn waayahay waxyaabaha kale Chelsea 5 ciyaaryahan baana taariikhda 10 gool iyo ka badan ugu dhaliyay Premier League Ingiriis ah waa Mark Stone nin la oran jiray Lampard waa Macallinka Sturridge nin la oran jiray Forlan Abraham hadduu ku birayo 10 gool buu haystaa Iglanescu ba laga arki jirin oo ciyaaraha sidan gool dhalinaya Christian Pulisic maanta gool buu dhaliyay tartiib uu soo kacay Mark Pulisic laacib uu ahaa la isku ma haysto ee Lampard la ku shaqeysana mooyaane kuwan hadda suuq sii gala maxaan ka qaban karnaa yaa wax laga qaban kara Chelsea haddaad Chelsea u fadhiisan weysaan horyaalka markii la duubto idinka hadli doona waxa uu noqday Pulisic ciyaartoygii afraad Amerikaan oo 3 ciyaar isku xiga Premier League gool ka dhaliya Roy Wagle Mauri Dempsey iyo Pulisic ninkii afraad buu noqday maanta hadda wuxuu marayaa 4 ciyaarood xiriir buu marayaa oo goolanayo imise Chelsea xiriir badanaysa Chelsea 6 ciyaarood xiriir bay badanayaan caawa Premier League way badiyaan hadda waa 6 kulan Premier League baa la guuleysanaya ka wada Chelsea waxba laga qaban karno nimankan ma joogtiino nimankan meel ay socdaan kulankii lixaad xiriir bay Premier League adkaadeen Chelsea maanta waana markii ugu horeysay Chelsea inay sameeyso May 2017 markii Anthony Conte watay horyaalkana ay qaadayeen xilligaas horyaalkii qaadeen hadda 6 kulan baa la badiyay armaan haddana waxba israasanaya markii ugu dambeysay Chelsea 6 ciyaar xiriir adkaato horyaalkay dafeen still haddana waa kan 6dii bay badiyaan Frank Lampard baa noqday macallinkii ugu horeeyay Ingiriis oo 6 ciyaarood Premier League adkaada tan iyo Alan Bardow 2012 sida ugu dambeysay Ingiriis la sameeya Lampardna waa kan caawa booska waa iskeenay 6 ciyaarood xiriir adkaanaya Chelsea caadi ma Chelsea cimaamadeeda garabka lagu ma haysan karo waa kaayay sanad ciyaareedkan waxaa jira dhowr ciyaaryahan oo 10 gool haysta iyo wax ka badan 5 horyal ugu qaarad Yurub Lewandowski Immobile Jamie Vardy Abraham iyo Timo Werner Chelsea marka waa kaayo maanta ay wax kaleeyeen oo ay guuleysteen ciyaartooydii Premier League marka anigu waxaan caaw meesha ruumad waxay tahay niman yahow Chelsea hal lagu adkay hadda kadib Chelsea gambar hal loo dhigto hadii kale say u wadayaan geedka inay ka dubtaan baan maleeyaa horaan idinku sheegay anigu libaax qoyay bisad hamoodin Chelsea waa libaaxo inta leedin ilmo wayaan bisad wayaan bis waa libaaxe waa libaax maxay tahay bisad maleeyay Roble ku daay Chelsea Roble ku daay markaas waxaad maleynaysaa inay bisad tahay maanu marka caawa Chelsea ay saahay aniga waana tuuraya cimamadaas oo ma haysto ogowna Tammy Abraham baan noqday ciyaartoygii labaad daayir oo Chelsea u dhaliyay 10 gool Premier League isagoo yani daayir ku dhaliya 10 gool Premier League tan iyo Ian Robin wuxuu sidan sameeyay isagoo oo jira da'da wuxuu jiray marka ninka yiraahdo Ian Robin wuxuu jiray marka markuu gaaray 10 gool 22 sano iyo 340 maalmood buu jiray Abrahamna waa ka 22 sano joogaya ayuu hadda jira iyo 38 maalmood Premier League 10 gool baa haysta cunugan korqombabka cunugan meel u socda cunugan ilma ka weyn waa ninka ilma u bariisin laakiin ilma weeyaan Ian Robin ma ugu dambeeyay daayirkii ugu yaraa yani ugu yar Chelsea gool u gaara hal markaas ku 20 sano jir buu ahaa 340 maalmood kanuna hadda waa 22 sano
iyo soddon state maalmood uu jiraayo marka waa kaayo nimankii Chelsea ciidamadooda waa kaa hayay Liverpool iska jir ciyaaraha waxa ugu weyn kulanka beri Man City iyo Liverpool u dhaxeeya habeen dambe waraajiro habeen damba insha Allah company waxa looga yeeray leeyahay inuu falanqeeyo ka noqdo ciyaarta waxaana Sky Sport kula biiraya falanqeynta Jose Mourinho Roy Keane oo lagu daray Jamie Carragher waxay noqonaysaa hal Man City iyo hal Liverpool company oo lagu daray Jamie Carragher kulkii Manchester Liverpool ciyaaraysa markii Man City Man United goal dhaliso baa waxa dabaldegay Neville markay Liverpool ay barajeysana waxa dabaldegay Jamie Carragher waxaana malinaya habeen dambe company iyo Jamie Carragher isku dhacan baan malinaya markay Liverpool goal dhalisay Jamie Carragher inuu dabaldego markay goal dhalisay inuu company dabaldega laga yaaba Mourinho afku waa gamax balay inuu gamayay waa gamax habeen dambe waxa caynay kaase xitaa kiin waa jooga kibirista kibir meel buu ku dhamaaday habeen dambe company falanqaynta ciyaarta Sky Sport baa lagu wacay ragabuna la falanqaynaya ogowna markii ugu horeysay taariikhda Champions League waxa laga yaabaa san ciyaareedka 2024 in lagu qabto meel aan hayo meel ka baxsan Yurub in lagu qabto laga yaabaa finalka 2004 ee Champions League waa shaqul gaal 2024 laga hadlo macnaha 2024 ay ka sii hadlayaan marka waxa lagu leeyahay sanadkan 2024 marka la gaaro in lagu qabto marka laga yaabaa magaalada New York ayaa laga yaabaa in lagu qabto finalka Champions League si mataqaana Champions League suuq geyn weyn halkaas ugu helo marka 2024 sanadkaas Champions League waxa suurtagal u leeyahay finalkiis in lagu qabto finalku yaal in lagu qabto New York وانا ملك بحسن markii ugu horeysay lagu qabanayo tartankan oo aan Europe ahayn tawbaraha caawa ka hor imaanay Arsenal Rodgers wuxuu leeyahay war anigu hadda bahaysa shaqo fiican maxaan Arsenal ku falaya uu iska beeniyay warka sheegaya inuu Arsenal tawbar noqonayo hadda ayaan bahaysta uu shaqo cimaamadan Leicester buu watay Leicester hatta day caawa soo bariso still Chelsea hadana in laga yaabo meesha laga baxsada laga yaaba marka wuxuu leeyahay caawa Chelsea waxay taageerayaan Arsenal taageersiin waxay leeyihiin war hay iska badan Cosmo soo dhaweey waxay doonayaan Leicester in laga reebo habeen dambe waxay ku duceysanayaan in ma taqaana Liverpool hatta la gara maya in baraje galaan bay ku duceysanayaan still ama Man City toos loo garaaco boos toos ay ugu galaan bay rabaan marka waa ka wuxuu leeyahay ninka la Rodgers wuxuu leeyahay ma raba Arsenal anigu shaqo baad haystaa ninkii Ronaldo ahna habeen dambe kulanka AC Milan iyo u dhaxay Juventus inuu seegi kara laga yaabay ugu dhaawac baa haysta ninkii Zarbi cadeeyay inuu ugu shaki weyn laga qaban ciyaarta aan ciyaari karin Ronaldo bariyaha maalin baa ku furtay ugu ciwaa la saaray waliba xataa gool bisuul la yaran siba ka xoogay ugu Ronaldo xilli ciyaareedka isagoo dhan wuxuu haystaa 6 gool 5 seria iyo halka kale meel kala ah 6 buu haystaa ugu dhan waa Ronaldo weyna ka war baa 6 gool meel la marmaraya wallahi ninkii waa gool yaraad ayaantan ugu bariyahan Ahmed Malahan ugu bariyahan Ahmed Malahan oo markaa tobaadka waa tobaad ma kamal daar weeyaan oo kuma halis weeyaan habeendan marka Inter Milan baa jiro Ronaldo inuu siga ciyaarta u badan tahay tawbaraha Milan ninka lagu magacaabo Booli wuxuu ka hadlay arrimaha ku aaday barnaamijka AC Milan uu ku beeray wuxuu yiri barnaamij waa laacib weyn laakiin ma cadeyn karna uu leeyahay in January nagu soo beeray in kale marka macnuhu waa qarinayaan caawa Barcelona Celtic bay la ciyaaraysaa warnimo iyo marada cishta ilma 3 daqiiqo ku garaacay oo haddana ma taqaana ilma yar kala baraaj guriga kula gasheen caawa Celtic iska jira asbas iyo balaaya meel ordayay waxa uu leeyahay Celtic waxa aad u jecel baa lagu leeyahay Anton Griezmann wuxuu ka dhaliyay 9 gool caawana isha baa lagu hayaa ciyaartaayo Griezmann waa koox ugu jecel Suarez baa caawa soo laabanay isagu marka caawa in fursad la siiyo hadda marka la weytaayo laakiin wuu diidayaan badda Messi weynaa oo Bruno caawin jiray dib xataa geed diido kalsooni kuma qabaan uu leeyahay Griezmann ku baddu baas wulina isku kurayaan isku kurayaan adagu dhowr todobaadkii la soo dhaafay 2 jeer buu Messi kubad ka xasay Griezmann ninka la yiraahdo marka adagu kurkuru ku haya Griezmann iska kurkuru idin saale warar sanada ma qastiya ilmihiin la shaqaysan lahaa oo jiwaalka idin fali lahaa hadad kurkuraysan idinka cirka rabo ciyaarihi caawa Arsenal baan si aadaynayo caawa Arsenal baa jirta Arsenal ugu soo adkeynaya kolba caawa Chelsea oo kale waa Leicester bay Arsenal bay taageeri doonaan malaynayaa hatta Brighton iyo xataa waa rabaano marka waa kayo war iska soo Leicester Arsenal leynayna waan iska Dortmund iyo Bayern Munich bakhaar oo idinashiya Bayern iyo Dortmund ciyaar waa Bayern Munich tobaad korshan lagu soo dhuftay caawa ciyaar barmeesh istaalo xitaa Inter Milan hataa waa ciyaar xilliga Real xitaa xilliga bay ciyaarayaan caawa Barca ciyaaraha baa jiray marka asxaabay ciyaari baan ugu goobeynayo war ciidamada Chelsea ma garab ku haysataan iska tuura ciidamada Chelsea caawa booska labaad Premier League Chelsea wax kala tiin anigu waan idin taageersanahay Chelsea dadkan baan u sheegay aan waa aqaanana Chelsea ani madaxan ka dareemay nimankan waxaan iri nimankan si ay tartiib ugu socdaan bay horyaalkii la wareegi doona hogaankiisa tartiib idin soo mashquula horyaalkana qaadano City qaadaya maya ana Liverpool qaadaya inta isku haysaan horyaalka bulu inay qabtaa laga yaabaa Pulisic yarba Pulisic ma ciidamadiisa la haysan karaa ninkaas laacib waa xogaa Premier League iska physical mooyaane cunuga xogaa iska jabinaya mooyaane waa ninkan laaciba Abraham Dara oo iska dhalaya ka wargeeda marka Chelsea waa kaalinta labaad Premier League nimanyo hadda kadib Chelsea gambar loo dhigto hadii kala Soomahan horyaalkaas ka qaataan reer Liverpool hadda kadib Chelsea gambar u dhigu weysaan reer Inkar horyaalkiina ma haddana shaki gali doona mar kale haduu Ilaahay Steven ka qabanayo haddana Chelsea ku ceebcina arinka
markuu ilaahay sidii jibin rabo haddana jilsa soo kooxaysa macnaa ciyaarihi caawa ayaaro inta tan ku soo gabagabaynayna asxaabay war Chelsea maxaad ka raadeen war Real Madrid maxaad kala haysaa wad leedahay war Real Madrid niman yahow caawa inay shan kala ka fadhiyaan waa laga yaabaa laakiin waa Madrid marka qaarna waa iska weynaysa waa iska habeen wayaan blue kooxda taay qadaro Chelsea ma laga aadi kara ama laga ma aadi kara Chelsea madax degsi ay leedahay Chelsea madax degsi ama ha ka aadi blue iska joog kooxda Chelsea waa madax degsi sanadkaana ilmahaas yaa heli kara ilmahaas janaan ciyaartu ku soo daro maxaa laga qaban karaa والله زوم عمدي سلام عيس غير زوم تيموري iyo kwara balayna bare kuwa kan uu war koon waa dhixi badan maxamed qadarow ya warwaka qadarow hadaan baarsho badiso saaxib maayo warniyo qabta ma soo gashay kar dhafar nagu dilna wada barina walaalayaal reer Messi cawada taraaxaysataan bariya cumadayna walaalayaal kab anoo gelina habeenka sadiiqiya kama socon karno warnimayo bariya ciyaaro waa ku daalna walaalayaal waxa way indhihi meel leer bay qodax bay naga noqdeen ahay mamika Ronaldo ka war mad leedahay ninki adigu bariya waa laga yaabay adigu ku raxta lagu haya wala ban adigu bariya macamad badna ya Juventus maxaa kale ma leedahay wallahi Juventus eber basiriya wax lagu qaban karay ayagu tartanka juble mooyaane sidee eber baan wax looga qaban karin nimanka xoog iyagu wax ka xoog badan ma lahanba inkastoo sanadkan ay iska roontahay kanta maanta way madax shaqaysana ka war saan isaga wareegaya ka war cunugaas gaaban wallahi ka dhaawac adiliya bariyahan maxaad Messi ka leedahay odaygu ku ka dhaafaninka odaygu waa maajige Messi daacad waxay jirin maxaa ku dhacay dad ku kuri jireen Neymar iyo kuwa kale isla shaqeeyay Reece James ana wala macna Reece James madaxdaashka James waxaan leeyahay wax la isla wada daashsan cunugaas baa nawaalay miya Arlambad waa nawaalay ilma yariis wada nawaala ka war oo hadda ninka ilmaha nawaalay haduu gaalo weyn kasta maxaan qaban karnaa haduu ilmihi Reece James nawaalayay haduu gaalo weyn kasta maxaan qaban karnaa Arlambad waxba ka qaban karno marka waxaan leeyahay Chelsea waa tinay reer Liverpool idda kadib ku adkaaya reer City ku adkaaya hadda kadib waxa umalena Chelsea loo wada fariisto galab kasta loo fariisto waxa umalena waa kuftay waa dhacday in loo marka fadhiga marka qaar ma fiicna dib ugu fariisto warar weeyaan caawiyo ciyaarihi asxaabi waa naga itaa nimankii Arsenal baan aadi doonaa caawa kollay ma taqaana iyagu balaayo haysatee fardiyaysi balaayaha Arsenal ku aqana caawa markii leeyahay una Emre Alciirina caawa kale iska badan hadii rabaan waa balaayo iska kacdo Arsenal mar iska kacdayo habeenkii kacsan tahay iska dhaaf Leicester yaa xataa macli karayaan caawiyo ciyaari waa naga itaa asxaabteedii idinka Madina ma haysa karaya qay idinka waa idinku tuuray Chelsea soo tuuray caawa marka waxaan iri maadaama ma taqaana yani asxaabta macnaha caawa ama la soo laaban doori hadda iska sii tuur Ramadan laha mugtahay waa marka waa ka asxaabay habeen wanaagsan baan leeyahay meel isbiid ka joogtaan caawa ku adkaysan fariisan doona ciyaaraas baan ku soo wada adkeynayna kooxaha ciyaaraya nabadgelyo asxaab